Guddoomiyihii guddiga bad-baadada Jubaland garabka mucaaradka ayaa caawa lagu dhaawacay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Jubaland. Warkan waxaa ilgaara ku hayay Cabdullaahi Xuseen Canshuur haynoo soo koobo. wararka caawa laga helayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dhaawacay guddoomiyihii golaha badbaadada Jubaland garabka mucaaradka hoggaankiisuna uu yahay xildhibaan xidig qudhiisuna kal hore sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland. mas-uulkan ka tirsanaa garabka mucaaradka ee badbaadada Jubaland la magac baxay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay abukaate Axmed Jaamac Qalyar, iyadoona goobjoogayaashu ay soo sheegayaan in goobta ay isaga baxsadeen kooxihii falkaasi geystay. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta garabka badbaadada oo guddoomiyuhu u ahaa mas-uulkan la dhaawacay oo goordhow aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in rasaastu ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka si gaar ah madaxa. tirada rasaasta haleeshay ayay inagu sheegeen 4 xabadood, waxaana iminka xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayaa mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Kismaayo. waxaana wararku ay sheegayaan in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato. weli wax war ah kama soo bixin saraakiisha ammaanka maamulka Jubaland oo ku aadan dhaawaca loo geystay abukaate Axmed Jaamac Qalyar oo ka mid ah mucaaradka Jubaland, isla markaana ay isku group ahaayeen xildhibaan xidig oo kal hore isna sheegtay madaxweynaha maamulka Jubaland. shalay ayay ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubaland uu digniin iyo goodin u diray rag uu sheegay in ay yihiin kuwa sheeganaya madaxweynaha maamulka Jubaland iyo dad uu ku tilmaamay inay wax u dhimayaan ammaanka magaalada Kismaayo. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Soomaaliya guul ka soo gaartay shirweynaha isgaarsiinta adduunka ee ka socday caasimadda dalka Hungary. warkan haynoo faahfaahiyo wariyihiina Farxaan Maxamed Xuseen. wasiirka wasaaradda booste isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo la taaban kara ka soo hoysay shirweynaha isgaarsiinta adduunka ee ka socday caasimadda dalka Hungary. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa intuu shirka socday waxay shirar kala duwan la qaateen dalal iyo hay'adaha caalamiga. kulankii ugu horeeyay ayay wasiirka iyo maarayaha guud ee hay'adda isgaarsiinta Maxamed Cabdi Sheekh waxay la yeesheen xogayaha guud ee midowga isgaarsiinta caalamiga iyo ku-xigeenkiisa arrimaha horumarinta, iyagoona ka wada hadlay sidii loo qiimeyn lahaa waxyaabihii ka qabsoomay qaraarka 160 ee u gaarka taageerada Soomaaliya ee dhammaadkii sanadkii hore lagu ansixiyay shirweynaha ITU. wasiirka ayaa ka mahadceliyay kaalintii ITU ay ka geysatay diyaarinta siyaasadda istiraatiijiyadda isgaarsiinta qaranka, tababarkii ugu horreeyay ITU ku qabatay Soomaaliya 30 sano kadib, iyo qorshaha kale ee haatan ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda iyo ITU. mahadsanid Farxaan. markana Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa sheegay in howlgal ka dhan ah shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. howlgalkan ayaa waxaa si wada jir ah u fulin doona ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. warkan Jowhar waxaa inooga soo diray Bashir Cali Daahir. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sheegay in haatan uu bilaaban doono howlgal ka dhan ah al-shabaab kaasoo ka bilaaban doono qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe kaga sugan yihiin al-shabaab. howlgalkan ayuu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle inay iska kaashan doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa Hirshabeelle kaasoo haatan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugan yihiin. amniga guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ka socda howlgal ballaaran insha Allah qaybaana ka nahay. aniga iyo madaxweynuhu isla soconana waxaan u tagnaa madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ugu tagnay arrin. waxaa kaloo ugu tagnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre. intuba waxay naga ballan qaadeen howlgalka ka socda Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe in lagu ballaarin doono waqti aan saas u dheeray. waxaan xanuunka idinku hayo amni la'aanta iyo maaragtay culayska dareemaysiin anaguna waa dareemaynaa. insha Allah haddii la raalli ka noqdo anaguna waa horkacaynaa oo Hirshabeelle ciidamada jooga waa diyaarsan yihiin waana la horkacay insha Allah haddii la yiraahdo. warkan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa imaanaya xilli maamulka degmada Balcad iyo waxgaradka degmadaasi ay ugu baaqeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii
dagaalamayaasha al-shabaab looga saari lahaa qaybo ka mid ah deegaanaha hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. ganacsatada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa halis ugu jira khasaare hantiyadeed kadib amar ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee dalka Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi nooga soo diray. dhibaato fara badan baa jirta, khasaarada inama u raacna ma garanayna, ganacsi ma lihin. waxa ay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Mandera. waxa ay doonayaan inay fuliyaan amar dhawaan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dalka Kenya oo si weyn dadka Kenya ku nool loogu sheegayay in la bedelayo lacagaha Kenya laga isticmaalo, gaar ahaan 1,000 shilin ee Kenya oo u dhigma $10, 500 ee shilinka Kenya oo u dhiganta $5 iyo 200 ee shilinka Kenya oo u dhiganta $2. Asaate waxgaradkan waxa ay gacmaha ku sitaan malaayiin lacagta Kenya ah ee la doonayo in la bedelo, waxaase hortaagan caqabad ku aadan in bangiyada lagu amray inay tagaan isla markaana lacago cusub la siin doono, balse bangiyadii ayaa ka diiday in lacagahani ay qaataan. haatan waxa ay leeyihiin meel ay arintan la ciirsadaan, sida daraadeed waxa ay walaac xooggan ka muujinayaan in malaayiinta shilinka Kenya ah ay gacanta ku hayaan gabi ahaanba ay noqdaan kuwa feelsa. magacayga Ibrahim Khallawaaye, lacagtan oo dawladda Kenya lacag cusub soo bixisay oo ay yiraahdeen lacagta bedesha la bangiga marka la tago lacagti waana lagu diiday, bedelkina waan ka waayne. sida daraadeed dawladda waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay lacagtan naga bedesho oo si degdeg amar la bixiyo oo bangiga lacagta dadweynaha ka bedeshaan ayaa dawladda ka codsanaynaa. dhibaato fara badan baa jirta, khasaarada inama u raacna ma garanayna, ganacsi ma lihin, lacag meel loo dirsan kara ma lihin, wax la soo iibsan kara ma lihin. waxaa la bilaabayna xaafadihii kawaanada ay leeyihiin lacagtan kunka ma qaadanayna, kii dhuxushu wada uu diiday, kii oo caanaha keenay uu diiday lacagta kunka, beesa ay diiday, dukaan raashin aan laga gadan karin, anaga bangiga uu diiday. waxaan isticmaalan waa lacagta Kenya, lacag euro waxba kuma gadana, lacag Ethiopia waxba kuma gadana. haddii muwaadiniinta reer Kenya aan nahnay, dawladda waxaan ka codsanaynaa lacagtaas si degdeg ah loogu bedelo, haddaan la bedeli karin in lacagteeda loogu fasaxo. aniga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdi Cali, waxaan ku noolahay Mandera, ganacsatada Mandera ayaa ka mid ahay. waxaan ka cabanaynaa lacagta Kenya oo 1,000 shilin ayaa nagula diiday. M-Pesa haddaan aan tagna waa nagula diiday in nagula shubo mobilada, bangiyaalka haddii aan tagnana waa nagula diiday. shardi waxaa laga dhigay account in la furo. lacagta ilaa baadiye ayaa jirtaa, baadiye reer miyiga ayaa qaylinhaya, dadka magaalada ayaa qaylinhaya, wax laguma gadan kara. ninka reer baadiyaha oo xoolaha keenay oo suuqa xoolaha ka iibsaday geela ama looda ama ariga, waxaa looga iibsaday lacagtaad kunkunka ah. lacagta ayada ahayn inay ka socoto ayaa la diiday, magaalada inaad wax ugu iibsaday ayaa loo diiday. account ma yaqaanaan reer miyiga, account ma isticmaali karaan. bangigana inaad lacagihii bedelo waa diiday. shardi waxaad ka dhigay in account la furo. ma jiraan ilaa iminka mas'uuliyiin ka tirsan ismaamulada waqooyi bari Kenya oo arrimahan si faahfaahsan uga hadlay. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. jaamacadda Jaziire ayaa heshiis la gashay jaamacad ku taala dalka Masar. markale warkan haynoo faahfaahiyo wariyihina Farxaan Maxamed Xuseen. gudoomiyaha jaamacadda Jaziira Professor Salaad Ibrahim Fiidow oo ku sugan dalka Masar gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Qaahira ayaa waxa uu ka warbixiyay iskaashi ay wada yeesheen jaamacadda Jaziira iyo jaamacadda Ayn Shamsi, isla markaana ay iska kaashan doonaan labada dhinac waxbarasho labada jaamacadood ee dalalka Masar iyo Soomaaliya. gudoomiyaha jaamacadda Jaziira Professor Salaad Ibrahim Fiidow waxa uu sheegay in Qaahira uu kula kulmay madaxda jaamacadda Ayn Shamsi, isla markaana ay ka wada hadleen sidii ay u yeelan lahaayeen xiriir wanaagsan, isagoona sheegay in labada jaamacadood ay iska kaashan doonaan waxbarashada dalalka Masar iyo Soomaaliya. mar uu la hadlay idaacadda Kulmiye waxa uu yiri madaxda qaybaha kala duwan ee jaamacadda Ayn Shams ugu dambeyn waxaanu maaragtay wada kulanay gudoomiyaha jaamacadda Ayn Shams Professor Dr. Maxamuud Al-Maftini. runtii aad iyo aad ayuu noo soo dhaweeyey waxyaalihii muqadimaadka ahayd oo hore aan isku dhaafsan jirnay oo ahayd kaashi inaanu yeelano jaamacadda Ayn Shams. jaamacadda Ayn Shams oo ah jaamacadaha Masar kuwa ugu tacaawin xagga muxuu ahay rankiga ama maaragtay sida ay u kala sarreeyaan jaamacadahana numberka labaad jaamacadaha kaga jirta. runtii xiriiro waaweyn adduunka ku leh
ayaanu maaragtay heshiiskii naga dhexay jira ayaanu niyad inaan kala hadalno nasiib wanaag dhammaan madaxdii aan kala kulannay jaamacadda Aynu Shamsi waxa aanu ka wada hadalnay oo ugu horreeyay inaanu yeelano iskaashi waxbarasho inaanu yeelano maaragtay cilmi baaris mushtarak ah ama naga dhexayso inaan yeelano maaragtay joint programs ama barnaamijyo labada dhinac ka dhexeeyo ama hab mobile ah ama maaragtay ardayda training u timaado jaamacadda Aynu Shamsi ama ha ahaato isbitaalada waaweyn takhasuska ah ay jaamacadda Aynu Shamsi ay leedahay intaas ayaan u nimid runtii dhammaanna waxay noqdeen kuwo maaragtay successful ama lagu guulaystay oo aanu markii dambaysayna aanu ku saxeynay heshiis isdhaafsiga jaamacadda Aynu Shamsi oo xiriirka la yeelatay jaamacadda Jazeera ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Masar. halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda kulmiye warkii habeenna waad la socotaan markaana warkii dibadda dabka kacay isbitaal ku yaala dalka Brazil ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 11 ruux isbitaalkan oo ku yaala waqooyiga caasimadda Rio de Janeiro ayaa laga saaray bukaano badan kadib markii dab xoogan uu ka kacay isbitaalka habeenkii Khamiista haweeney ayaa warbaahinta golobo u sheegtay in aabaheedu 77 sano jir ah ka mid ahaa bukaanadii ku sugnaa isbitaalka sidoo kale goobjoogayaasha qaar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in bukaanada qaar ay isku dayeen in ay ka boodaan dhismaha isbitaalka xilli qaarkood ay aad u qaylinayeen maamulaha isbitaalka ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin inuu jiro wax dabka kiciyay oo sabab u ahaa balse waxa wali socda baaritaano lagu hayo waxa sababay dabkan